lacag howlgab ma haysanaa lacagta la yiraahdo markaa westernka joogno retirement money lacagtaas ma haysanaa dadkeenan sagaashanka waddankan yimid westernka imaaday oo maxaa la dhahaa shaqooyin badan aan haynin ama ceer qaadanayay amba marmar uun shaqayn jiray wax lacag retirement ugu talagal naftiisa ma haystaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu seetiin saaxiibaday ma fiican tihiin arrintaanintod maanta oo anna i qusayso idinkalena i qusayso dadka da-deedoo kalentad baan rabaa inaan wada sheekaysano horta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan ku salino sala allahu calayhi wasalam ilaahayna kheyrka hana waafajiyo waxaan isweydiinaynaa su-aasha ah dadkeena yurub yimid 1991 oo haddeertaan 50 iyo wixii kasii weyn jiro lacag oo howlgab ma haysanaa retirement money ma haysanaa markaan kooyi nimid meeshaanitood ceeraa la qaadan jiray shaqo hore kama aadi kartid sababta ah waa inaa maxaa la dhahaa horta kuwa waddanka systemkeeda sida qabsataa luqadda daan aqoon inaa luqadda barataa inaa lagu meeleeyo inaa ciyaalka iskuul maxaa la dhahaa iskuul u hesho guri in lagugu meeleeyo lacagta ceerta a qaato dadka badanaa 5 sano ugu horeyso ceeray qaataan westernk marka jooga 2 sano ilaa iyo 5 sano ugu horeyso qof kastaba iyo nasiibkiisa waay marka kadib waxaa imaanayso hooyada inay ku mashquulsho ilmaha maxaa la dhahaa iskuul iyo dugsi iyo gurigaas inay hayso reerka inay isku qabato waay hooyada aabbahan hadduu aabba joogo aabbaha wuu shaqo tagayaa marka markay hooyada ilmaha u weynaadaan oo xoogaa yar ay soo kaagacaan ciyaalkeeda waxaa laga yaabaa inay shaqo ay bilowdo oo 4 saacadood maalinta ah shaqadaasitadna maxaa marka qaarkood waxay kugu xiran tahay inay mar ilmaha kaa jiradaan sanad inaad 6 bilood ka shaqayso sanad inaad wada shaqaynin adiga waxay ku xiran tahay iska dawareeg sidaa ogtihiinba marka meesha waxaa ka baxaayo xaqii oo markii aad howlgab noqon lahayd lacagta aad lahaan lahayd male marba company ku guuraysaa lacagtiina mala soo guuraysid ama maba gaaraysidba xaqi aad intii lacagta xaqaa lahayd aad gaartid marka hooyada soomaalida ah maxaa annaga retirement lacag noo ah maxaa la dhahaa lacagta howlgab noo ah beritoole markaa weynaato ma haysatid lacagtii oo xaq u lahayd oo meeshaa rata aadi kartid waddankaaga iskaga noqon kartid ama waddankaa rata adeegi kartid oo maxaa la dhahaa lacagtaada retirement manigaaga aad ku qaadan kartid ma haysano hooyada soomaalida meesha waxaa kaga dhumay xaqi ay lahayd oo sida raggoo kaleentood markay shaqeeyaan ay weynaadaan 67 ama se 70 wax yar soo ka dhimanay ragga ay galayaan retirementka waddankii u guuri karaan lacagtoodii qaadan karaan iyagoo xor ah ee meesha rabaan degi kartaan because shalay soo shaqaysteen lacagtoodii retirementka u taallaa lacagtooda way usoo dhacaysaa waddankaasi ku qaadanayaan waddan meeshay rabaan ee degan yihiin ay ku qaadanayaan marka hooyada soomaalida ah maadaama ayna haysan xaqaasitod oo aynan hore maxaa la dhahaa xoog usoo shaqaynin amba waqti badan ayna haysanin ay soo shaqaynin ma haysata lacagtaasitod waddankay rabta inay ku degto soomaali deerta waddankeeda inay u noqoto ayna degi karin ee lacagtana ku qaadan karin waxay noqonaysaa inay maxaa la dhahaa wax la-aan ay ahaato amba ay ku noolaato inay dad sugto amba inay maxaa la dhahaa meel soo fadhiisato meel ay maalin kasta tiraado nolosheeda waxma kusoo qabsanin waxba ma aan dhiganin mana jecli nafteedan cizaa mana jecli waa ilmahaygana wax weydiisto dad badan hadda saas ku nool nafteeda inaa wax weydiisto dad ma rabo marka taas waa su-aasheeda maanta sheekadaanito dhalinyarada ma u taalo because dhalinyarada haddeertaan jirto waxa waaye naftooda baa nambarka koowaad ugu jirto ama gabar ama wiil markay wada shaqaystaan lacag retirement ay leeyihiin badanaana gurye iibsadaan maxaa la dhahaa dhibkii annaga aan soo marnay ayaga ma marsano because annaga waddan dhan oo burbari baan waxaan rabnay inaan maxaa la dhahaa garabka qabano ehelkii dhan garab qabano marka qofka ibni aadanka intuu gacantiis kusoo dhici karto aad u yar tahay meeshaanayto lacagga geedaha markaaga soo baxaysa ma kasoo gogoosanaysid waa inaa xooggaada iyo timekaaga aa gelisaa marka walaalayaalow xaqeena meesha wuu ku dhunsan yahay xaqeenaa ku maqan waxaa maqan meeshaanayto dad shaqaynaya ahayn shalitoole wixii kusoo galay ilmaa ku masruuftay waa sadaqaysatay naftaada maxaa la dhahaa wax meel ma u dhigan karin wax dhaqaaleysa lagu dhahaa laakiin intee dhaqaaleyne inaan culays qof ku ahaanin oo adiga aa haysato lacag adig kuu qaas ah oo sidii raggoo kalentad siday u haystaan lacagta retirementka ay u haystaan meeshay rabaan u degi karaan because ninka waa dhiman karaa waa isfuri kartaan
markii hore dowladda ma isku qabin retirement money ma lagu siinaayo magaca oo dowladda isku maana gursanin islaamiga isku gursateen marka registration ma haystid xataa oo beritoole xaq u lahaan karti retirementkaas marka waxaana meeshuu ku dhunsan yahay marka maxaa noo tala ah hooyooyinka soomaalida annagoo ilmaheena ognahay inay waxna siinayaan laakiinse annaga aan rabin nafteena inaan cisna aan rabno oo lacagti aan ku noolaan lahayn sidii ragga markii ay retirement noqdaan lacagti ay xaq u leeyihiin u haystaan annagana lacagtaas oo kale xaqa u lahaa lahayn sidee ku dhici kartaa maamo guri joogta ahayd waqti yaraa shaqaynaysay marna ma shaqaynaynin ilmaa dhalaysay marka lacagtaasna ma haysatid waddanka inaad ku xirnaatona ma rabtid oo maxaa la dhahaa cumrigaaga meesha inaa iska fadhiisa ma rabtid waa weynaatay waddankaaga rabtaa inaa aado sidee marka lacag intee laga keenaya mala isweydii su-aashaas intee lacag laga keenayaa qarash intuu ka imaanaa dhaqaale intuu kaaga imaanaa waad weynaatay 6 bilood aad soo shaqayn jirtay meelaha aad soo nadiifin jirtay ama keerka aad ahayd way soo dhammaatay maxaa noo talo ah maxaa noo ah sheekada waxay kusoo biyo shubatay dadkii dhan waxba u soo qabatay ilmahaaga waa korsatay waxaa samee lahayd adduunka waa soo samaysay taada markii hadda imaatay wax aa haysatid afar adduun aa qilashanaysa mala walaalayaal su-aashaas sitada isweydiiye aniga su-aashaas isweydiiyo maxaan samayn karnaa oo marka da'da eena weynaato waddankeenna u guurno annagoonan ilmaheena culays aan saaraynin oo ilmaheenana aan waxba ka rabin xornimada inaan ku noolaano sidee marka ee naftaada kusii soconaya inta way joogi kartaa ilaa ka gaaraysid da'da oo lacag waayeelka qaadanayeen waa joogi kartaa kadib laakiin waxaa kugu qasab ah inaad waddankan fadhiisid oo aadan ka dhoofin oo lacagta si aa u qaadato sanadka waqti gaabanaa lagu ogol yahay inaad ka maqnaato waddankan inta kalena inaad gurigaada joogtid waayo oo meeshaan aad joognaatid sidaa ognahayne annaga ma rabna meeshaan inaan joogno markaa weynaana waxaan rabnaa dadkeena soomaaliya sidii ku nool yihiin inaan ku noolaano waddankeena inaan aadno haddii aan runta isku sheegno maxaa noo qorshe ah su-aasheeda maanta taas waaye marka ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu noo naxariisto oo qulubteena noo adkeeyo adduun waa laga tagaya ma lasii joogaayo laakiin in la xisaabtamo way fiican tahay maxaa la yidhi u cibaadayso in aa maanta dhimanayso kaleentod una shaqayso ama u fikir oo noloshaada horumarkeeda kasii fikir inaa inta joogaysid ebidka su-aashaasaa isweydino sida waxaan ka qaban lahayna aan fiirino bis miyaa retirement money lacag ma noo taalo annaga saanlime xaalkeena ahaanayaa sidee xaq ugu yeelanaynaa lacagta howlgabka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kheyr aan isku ognahay